kulanti wacan asxaabay kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay muuqaalkeena waxaanu ku eegi doonaa waxyaabaha wargeysada caalamka ay ka qoreen saxada kubadda cagta kulamadii maanta la ciyaaray waxyaabihii laga diiwaan geliyay wararka kale soo baxaya iskuadka championka oo maalinka bariya la sameyn doono iyo wali waxaan eegi doonaa kala sareynta horyaalada oo isbedel ay ku yimaadeen muuqaalkeena intayna bilaabin saaxiibayaal like saara sina share gareya si asxaab badan ay u gaadho haddii ay tahay markii ugu horeysay aan soo booqatana fadlan rukumo oo kambalelkana furo saad ula socoto wararkii ugu dambeeyay dhaqaaqa suuqa kaliibsiga iyo waxyaabaha ku cusub kooxdaada mar labaad soo dhawaada saaxiibayaal haddii aanu ku bilowno kulankii Manchester United ee galabta runtii Manchester United maxaa galabta ku dhacay 3-1 ayaa lagu garaacay 10 daqiiqo markii marsiiba 2-0 ay ciyaartay marsi walay galabta Unai Emery welcome ayaa ka dhacday xidigaha Aston Villa ma Unai Emery way soo dhaweynayeen isbedelka noocaasi Aston Villa miyaan ahayn koox yar kooxda ay garaacayeen 10 daqiiqo gudahood in Manchester United 2-0 la mariyo Bailey ayaa daqiiqadii lixaad ba gool kaga shubay Manchester United halka Digne isaguna daqiiqadii 10aad ba oo free kick gool aan caadi ahayn laga dhaliyay ugu dambeyn 3-1 ayaa lagu soo garaacay Manchester United kulankani Cristiano Ronaldo ayaa lagu soo bilaabay inkastoo kulankana uu kabtanka loo xiray haddana kulanka odayga kabtanka loo xiray taasi 3-1 ayaa lagu garaacaya wala dhibta Manchester United waa Cristiano Ronaldo kulanka lagu soo bilaabo ninkan waa laga badinayaa kooxda Premier League kulanka lagu soo bilaabo waa laga badinayaa kooxda Man United wata maantana 3-1 lagu garaacay Manchester United sidoo kale Newcastle United ayaa laga yaaban yahay in doorkan aanu Newcastle madaxan u raxay waayo tan iyo markii ay kooxdu lacageysatiba niyadii ka lacageysteen oo waa kaasi gool bisaasi u fardhinayaan Southampton maanta maxay ku sameeyeen 1-4 ay ka badiyeen 4-1 ay Newcastle ku dhufatay Southampton inkastoo tobarihii kooxda Southampton ba la xaqiijiyay in la cayriyay runtii tobaraha kooxda Southampton ee Ralph Hasenhuttl ayaa waxay warku soo baxayaan in la cayriyay oo shaqada laga yeeriyay Newcastle United wataasi 4-1 ay kooxdan ka adkaatay Almiron tobara weeryahanka kooxda Newcastle aad ayaa looga yaaban yahay todobadii kulan ee ugu dambeeyay hal kulan baanu dhalin 7 gool ay 7 kulan ugu dambeeyay halka 4 kulan ugu dambeeyba uu shabaga soo taabanayo weeryahankani runtii waa kacsan yahay weeryahankani break kulankii Fulham 2 gool ayuu dhaliyay Brentford goal Man United waa kooxda aanu ka dhalin Everton Spurs Aston Villa Southampton afartaasi kooxood kalaba min goal ayuu ka soo dhaliyay ugu dambeeyay 7 kulan hal kulan baanu gool dhalin halka kulan uu laba dhaliyay 7 gool oo 7 kulan ugu dambeeyay kala dhalinaya waa laga yaabay Wood Willock iyo waliba Gumares afartaasi xidig ayaa kala qaybsaday goolasha Newcastle United ay ku adkaatay maanta runtii kulankii adkaa Liverpool iyo waliba Tottenham runtii kulan adag ayuu ahaa waa la saadaalin karin laakiin waxa uu muuqday kulanku in halfkii horeba ay Liverpool ay cadeysteen guushaas ay gaadhay markii Mohamed Salah uu 2 gool ugu shubay Mohamed Salah oo abaar gool la'aan ay horyaalka Premier League ay haysay ayaa runtii in 2 gool ugu shubay kulanka kulan adag buu ahaa gool Mohamed Salah uu ka caawiyay saaxiibkiis Nunes ayuu kaga badiyay ayuu ugu shubay goolkii koobaad waxa waa gool oo Nunes uu ka caawiyay Mohamed Salah abaar gool la'aan baa haysay horyaalka Premier League labadii gool ee kooxda Tottenham ka dhaliyay waxay ka dhigtay in 6 gool iminka horyaalka Premier League uu ka dhaliyay baryahaban Mohamed Salah horyaalka Premier League oo kooxdiisa Premier League gool dhanaya in aragnaa way adkayd Tottenham ayuu 2 gool oo isku xigay ka dhaliyay runtii halfkii dambe Tottenham isbedel noocay sameeyeen runtii waxaan mooday in halfkii dambe xidigaha kooxda Liverpool ay daaleen oo weerar aan kala go' lahayn lagu soo qaaday oo weerarka waa la yaabay halfkii dambe inkastoo daqiiqadii 60 oo Harry Kane oo goolka rajada galiyay Tottenham uu dhaliyay inkastoo Kulusevski oo ninkaas astigu lahaa isagoo waliba soo galay daqiiqadii 60aad garoonka soo galay ayuu daqiiqadii 60aad ba gool ka caawiyay 1 daqiiqo ay ku qaadatay gool caawiyo oo rajada kooxda Tottenham soo noolisa ugu dambeynna Liverpool ayaa 2-1 ku adkaatay runtii isbedelka
kala sareynta horyaalka Premier League isbedel weyn baa ku yimaaday. Arsenal iyadu waa tii horyaalka dib loo wareegtay 4 dhibcood, Man City iyadu weli kaalinta labaad fadhida. Newcastle iyadu kaalinta saddexaad ayay timaaday. Waxay ka faa'iideystay maanta guuldaradii ku yimaaday labadii kooxood ee ka dambeeyay ee Tottenham iyo waliba Man United. Tottenham 26keedii ay haystaa 27 ay Newcastle dhibcood ay haystaa, halka Manchester United iyaduna guuldaradii soo gaadhay weli ay ka dhigantay in kaalinteedii shanaad ay fadhido. Liverpool iyadu waa soo kacday, kaalinta sagaalaad bay fadhiday. Chelsea ay 2 dhibcood marka ka dambeysaayo weli waxaad moodaa hogaankeeni Hungariga ka jira Liverpool oo kaalinta sideedaad ay weli soo fadhida oo way soo dhawaatay, oo guushan ay maanta gaadhay guul weyn ay uga dhigan tahay. Runtii haddii maanta laga badin lahaa xaalkeedu aluusal ayuu noqon lahaa. Juventus iyo waliba Inter waa kulankii weynaa ee sugna jiray maanta. Juve iyo Inter 2-0 ayaa Inter lagu garaacay. Juventus Spaak runtii waa soo noqotay Juventus rajadeedii, inkastoo bilowgii ay muuqatay koox wareersan oo taasi maanta waxay garaacday kooxda Inter Milan. way soo weedaarisay Juventus kaalinta guushii ay gaadhay waxay ka dhigantay kaalinta shanaad ay timaado, toddobaad ay kasoo dhaqaaqdo. waxay ka faa'iideystayna guuldaradii Roma ku timaaday maanta iyo Inter iyadoo ay ka badisay oo labada kaalmood ee kusoo xiga fadhiya. kaalinta shanaad 25 ayay leedahay, halka 10 dhibcood hogaanka laga hayo kooxda Juventus oo Napoli oo 35 dhibcood leh ayaa 10 dhibcood ka haysa hogaanka kooxdii Juventus ahayd sanadii ugu dambeeyay horyaalkan daldalatay. laakiin waxaad moodaa in guulihii iyo waliba horyaalada isku xigay qaadqaadisay in la isaga daba yimaaday. Roma iyadu Lazio ayaa gool iyo warka ka badisay, gool daqiiqadii 9aad kooxda Roma laga dhaliyay oo Anderson uu ka dhaliyay ayaa lagaga badiyay kooxdii tobare Mourinho. Lazio laftigeedu kaalinta saddexaad ay fadhidayo, sanadkan Hungary ayaa kaga jira waxaa laga hayaa hogaankeeda laftigeeda 8 dhibcood ayaa hogaanka laga hayaa kooxdaasi Lazio. Napoli ayaana ka haysa. runtii waxaa leeyahay ninkii Toni Kroos waxa uu ku adkeysanayaa in waayihiisa kubadda cagta isaga fadhiisto. waxaa leeyahay wada hadal ayuu la sameynayaa qoyskiisa oo la arinsanaya kubadda cagta oo ka fadhiisto, inkastoo kooxda Real Madrid ida ay doonayso weli adeegiisa ay u baahan tahay oo ay soo bandhigtay heshiis waqti dheer ah. laakiin waxaa leeyahay kooxda warta waxay dareensan yihiin Real Madrid. warta ninkani sanadkii 2021 waa ka fadhiistay ciyaaraha caalamiga xulkiisa Germany oo isaga fadhiistay game ahaanba. Real Madrid waxay dareensan tahay in ninkani aanu kaga jeedin meel kale horto oo ciyaaro caalami ah waxa uu aadaya ma jirto. waana la isku yahay in ciyaarahaasi inta badan kooxaha dhabarjo weyn oo ku yimaado oo xidiga ay ka dhaawacmaan oo ay soo gaaraan dhaawacyo, adeegiisana way baahanto khadka dhexe weli waxa uga ciyaara kooxda Real Madrid Luka Modric, Toni Kroos iyo waliba Tchouaméni oo halkaasi kubadaha soo sameeya. markaasi xidigaheeda aadaya si dhaawacyo soo gaari karaan waa caqli. ninkan aan ka mashquulin bay doonaysaa in ay ku shaqaysato oo weli heshiis bay soo bandhigaysaa Real Madrid. laakiin waxaa leeyahay haddii ay Real Madrid oo kaasi adkaysto Toni Kroos oo uu ka tago kooxda oo kubadda cagta isaga fadhiisto, waxaa leeyahay kooxda Real Madrid beddelka Toni Kroos waxaa diiradda u saaran yahay xidiga khadka dhexe kooxdaasi Brighton Moises Caicedo. ninkaasi Moises ayay u aragtaa inuu yahay beddelka Toni Kroos ee khadka dhexe. ninkaasna waxaa isha ku haya madaxweynaha kooxda Real Madrid Brice Ancelotti ayaa waxa uu shaaciyay inaanu kulanka maalinka bariya ay Real Madrid ciyaari doonto inaanu ciyaari doonin weeraryahanka kooxdani Karim Benzema, inkastoo horta dhaawacii ayaa ninkani weli uu dareemaya Karim Benzema, inkastoo kulanka championka ugu dambeeyay oo soo galay haddana waxaa leeyahay kulankani ciyaari maayo. dhaawacidii ayuu weli dareemaya ninkii Benzema oo kulankani qayb kama aha safarka uu la galay kooxdiisa Real Madrid. maantana kooxda dumarka Barcelona ayaa guushoodii 9aad oo xidhiidha waxay ka gaadhay dhigooda Real Madrid kadib markii ay 4-0 ay maanta ku adkaatay kulan El Clasico. wale Barcelona malaha dumarka ayaa ka roomba Real Madrid sanadii ugu dambeeyay waa hordhaysatay, laakiin marka la eego 9 xidhiidha ay dumarka Barcelona dumarka Real Madrid garaacayeen
afri eber bay maantana kaga adkaadeen runtii El Clasico waa El Clasico rag iyo dumar ba ahaado 9 xilina ay dumarka Barcelona ay ka badiyeen Real Madrid dumarkooda kulan El Clasico maantana afri eber ayaa loo garaacay waana markii 9aad ku darso runtii isku aadka ee waxa la sameyn doona maalinka bariya isku aadka championka waa macquul inaynu aragno kulmo waaweyn oo championka isku aadka horta waxa la sameyn doona bari in labada oo bura ayaa isku aadka championka la sameyn doona waxa macquulan ku leeyahay inaad aragto Liverpool iyo Real Madrid Liverpool iyo inaad aragto kooxo kale oo waaweyn oo isku dhici karaya runtii idan waxa macquul ah inaan aragno horta PSG kaalmaha kooxaha ku soo baxa B iyo kooxaha A ku soo baxa inta badan isku dhacaya iminka iskuma dhici karaan Real Madrid Chelsea Tottenham Benfica Napoli Porto Man City Bayern kooxahaas iskuma dhici karaan laakiin kooxaha B ku soo baxay sida Liverpool Club Brugge Inter Frankfurt Milan Leipzig Dortmund PSG kooxahaas isku dhici waxa macquul in aragno PSG iyo waliba Bayern in aragno PSG iyo Man City PSG iyo Porto waa kulmo waaweyn PSG Real PSG Chelsea PSG Tottenham waa kulmo waaweyn in runtii aan aragno Liverpool iyo Bayern Liverpool iyo Real waa kulmo waaweyn ee loo sugayo sidoo kale Inter iyo Bayern waa kooxo isku dhici kara laakiin meelaha koox walba iska ilaalinaysa waxa weeye in Liverpool ay ku dhici karaan iyo in PSG ay ku soo aado kulmo waaweyn baa dhici kara Brighton ugu dambeyn waxa la sameyn doona qortuurka isku aadka tartanka Champions League wararkeena ciyaar wanaagta saaxiibayaal intaynu kulmi doono wararkeena kale wassalaamu calaykum